reerkana waxaan rabaa in fuusaka lagu soo riixo sida ogtiin waxa waaye weli hawiya sheekadan wado waxaan rabaa ninkaan rabaa in la ceebeeyo dadka shalay soo fadhiista midiya dhahay waxa waaye ninkaan ma ahan iyo waxa waaye waxay rabaa ninkaan ay waxay u malayaan inay hadlayaan laakiin ninkaan caynayaan aflagaadeynayaan maxaa yeelay nin xaaskiisa oo 2 sano ku dhawaad qaba 1 sano iyo 8 bilood uu qabaa Cabdinaasir leena oo hadda 6 bilood ka hor ma guursanin dadkan wax ma soo baaran wax ma soo hubsadaan aroos kale arkeen waxay u malayaan inuu hadda guursaday maba ogaba 2025 inuu Cabdinaasir leena qabo guriga uu tagaa ku meersadeed maba ogaba dadkan mugtaa waxna ma soo baaran muuqaalkan asagoo ay hadda way ku cilnaa marka xaasaskiisa walaalayaal labadaas waatan soo dhigay leena iyo farxiyo tanna Hamza la abtigiisa dhalay xaaskiisa waxa waaye afraad waaye tasdaxad waxa waaye midda oo habariyoosta oo holan ku furay oo labada gabdhood wayso saasa idinku cilnaa ninkan meeshuu ku dhashay ilaa iyo holan ilaa iyo biljama idin keeni doona sida sheekadu faantaan saana marka wax soo baaris uu sheegay saan way oo maanta habar jecel waa fiirsan isaaq waa fiirsan inta daabeen ka sheego xafsan waa la yaqaanaa leenan waa la yaqaanaa farxi waa la yaqaanaa asagana waa la yaqaanaa midda holan joogto iyo midda jarmaq joogto dhulbaantadana waa la yaqaanaa taasna waa qab ugu fur taasna marka waxa way saa marka ogtahay wax ogaa kartaa laakiin inta iska soo fadhiisato ninka waa nin weyn waaye ninka ma ahan ninka waa nin hawiya nin kala waaye waxa way waa aflagaado waaye oo loo geysanayo leeno iyo Cabdinaasir waaye taas waxa way dadkaas waaye hadda marka sheekada qisada ninka intaan gelin waxa rabaa inaan idin sheego nin walba oo naag guursadaan hadlooya ninaan dhalinyarada aan wax soo guursanin kuma jiraan dhageystayaalka noqda ninka naag soo guursaday adiga xaaskaaga oo ilmaha ku dhasho waqti wada qaadateen oo farxad wada qaadateen wajiga hadii laga qariyo waxa way gacantaada iyo xubintaada tarka inta hoose ma ku sheegi kartaa ma ku sheegi karto taas waxa way ragga xaasaska qaban la sheego soo kuma sheegi karto ninkaan saas waay ninka inuu Cabdinaasir yahay gacantiisa iyo xubintiisa taranka boqolkiiba boqol maana milyan confirm waa xaasaskiisa soo xaqiiji marka adiga i daawanay nin naag waxa tahay anigaba waxaan naga yaqaan muuqaalkaas inuu Cabdinaasir yahay inuu nin kale yahay waxaan naga yaqaan Cabdinaasir xaasaskiisa ayagana soo xaqiijiyeen inuu Cabdinaasir ninka yahay taas waxa way milyan confirm asagana waa qartay shalay dad badan oo u sheegay oo habar jecel wuxuu yiri maqaayad anoo fadhiyo marib ana waxaan soo qaylay laakiin asagu wuxuu yiri qaylad ma sheegay wuxuu yiri maqaayad anoo fadhiyo telefonkii loo kuma xirnaan uu yiri waa laga xado yiri waxa way meesha laga duubtay asa afkiisa ka dhahay Cabdinaasir wallahi bila ana bidi sheegay marka taas waxa way lahajad nin waxa way lahajad oo waxa way ruqooyi ma ahan iyo lahajad ma ahan ninka wuxuu yiri kaale dhuuq bis u dhaa wax kala ma dhihin af kale uu qad kale meesha kuma jirto hadal kale kuma jiro waa kaale dhuuq way bis marka sheekaas waxa rabaa in loo bedelo fuusta inta laga dhigo lagu riixo habar jecel lagu riixo abgaal lagu riixo balaad u fiirso maxay abgaalka saas waay mar walba saasa fuusto lagu soo riixa oo abgaalka habar gidra dhiin qabiilada kala dhiin caawtirimi abgaal u qabaan waay ana idin xaqiijinayo yarkaas abgaalkana shaqo kuma lahan Cabdinaasir muuqaalkana soo kusoo baxin waa ka soo hadlo kuma soo celinayay asaga inuu soo qarxiyo mar rabine saasaan looga xalay taas waa faanteen waana ragga xaasaska duubto gadaal ka raaxaysto Cabdinaasir kaligiis ma rag badan oo saanana jir taas waa faanteen Cabdinaasir hadduu caawilidiis banaanka la keenana nimcan hilaa ala keeno fanaan lejana maanta waa nool yahay noloshiisa wata katan ayub nin aad u cusub saaxiibna noloshiisa wata waa la keenay asoo qaawan oo xubinta sare gacanta ku hay sidoo kale ah in xaliye waa taqaan nin aad u cusub oo lejana waxa waa qofka noloshiisa wadana ceeb waaye laakiin waxa isbedelaya ma jirto Cabdinaasir waxa iskama bedelayo leena nolosheedana waxa iskama bedelayo waxaas normal waaye naag badan oo qaawan oo caan waa joogan nolosheedana wataan leena horta kuwaas ay kamid tahay hadda waxa idin keenaa marka ilaa dadku wax ma soo baaro wax ma ogeyn ninkan Cabdinaasir cali waxa way farax waa tamqiis sheegay in Soomaali isaaq habar jecel reer farax wareer burco waaye 2006 wuxuu soo galay holan asoo burco joog gabadhaas guursaday ilaa haddana waa qabaa laakiin xogaa isku kacsiin ilaa bulanko soo guursaday oo leena oo aroos ugu sameeyay xogaa ku kacsan tahay biljima joogta asaa keenay waatan ka soo hadlay xaaskiisa ugu horeysay waaye labo wiil oo weyn oo hayso 20 jir ah farxii jaamacal ahaa waatan ka soo sheekay asoo qabo wuxuu soo aaday holan uu iska dhiibay 2008 sharci waa loo diiday meesha wuxuu ku guursaday gabar habar yoonisa laba gabdhood oo dhashay waxa waaye 4 sano 5 sano ku dhawaad joogay sharci meerin laba gabdhood markay u dhashay waa ka soo tagay biljim uu iska dhiibay 2011 dhamaadkeedii sharci yaalisay meesha deganaa xaaskiisa uu tagay oo holan midaasna uu tagay 2018 markuu dhalashada biljim qaatay oo wuxuu aaday burco kadib gabadhan uu soo guursaday gabadhan abtigiis laxmiya dhalay laba garow ayadoo haysto guursaday waxa la Hamza taqaana Iimaan Saleymaan Allah waa Soomaali waa isaaq habar jecel isku xidlay waaye taqaana wuxuu keenay awleen u xareeyay adiga xogaa sugay 2021 soo waday wuxuu keenay 2021 soo wadin midaas habar yoonisto waxay dhahday fur marba hadaa naagtaas guursanaysid saasoo ku kala tageen saasoo ku furay 2020 ku furay oo hadda istaghfar 2019 ku furay
mataqaana midaas habar yoonista gabadhan uu soo guursaday 2021 uu soo waday 2022 wuxuu keenay ingiriiska iyo Belgium asoo tagtay maadaama dhalashadu haysto mataqaana 2024 dhamaadkeeda waxay maqashay Xamzo leena inuu ninkan meersaday 2025 soo baxday Belgium ay maaday way xaqiiqsatay inuu ninkan leena guriga la degan yahay uuna qabo xaaskiisa ay tahay farxidaas ay joogto waxay tiri naag saddexaad aniga mila qabiis ifur gabadha abtigiisa dhalay saasoo ku fur Xamzo waxay ku noqotay ingiriiska leena 2025 oo dhan Cabdinaasir iyo leena waa isqabin xaaskiisa u ahayd aygu u tawaasoo soo galmoonay xaaskiisa u ahayd arooskan hadda la dhig taas ma fahanteen muuqaalkana saasoo ku soo baxay oo dadka wax duubto asoo ku raaxaysto waaye asoo meel fadhiyaan laga xaday saasoo muuqaal ku soo baxay taas ma fahanteen waxa fuusooyinka la wadana waxba kama jirto waxa waaye haddana Allah caafiyo gabadhu waxa waaye maanta waa lagu soo boodayo waxaan usata isbitaal ay joogtaa asaa la joogo dad isjecel isla joogo waaye Cabdinaasir muuqaalka ku soo gaaraa intaan ku qatimaa intaan qisadan ka soo sheekeenay waxaan dhan gabdhaan xaasaskaada inay yihiin saddexda kale mid oo hola joogto iyo mid Jarmalka joogto iyo midan oo hawiya aydan wiilku ku dhasho aydan Ingiriiska joogto intaas xaasaskaada ahaayeen Cabdinaasir waxa waaye nin qaawan oo la keen adigu ma horeysid nin sikadiisa ama si qaldan muuqaal ku soo baxin adigu ma horeysid noloshaada wadanaysa laan dheereysan kor u taag xaaskaagana maanta garab ay kaaga baahan tahay Elena garab si waxa waaye intaan walaalayaal waxaan ku soo qatimaa qisada ugu dambayso reerkan iyo waxa beenta laga faafinay waxba ka jirin muuqaalkana waa labadooda waa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.